بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل دوا عنا ونكسن دعوة ملك بتشوف تنا ما نقد دعوة نسان كسر دوا ده حلقة ديني لبعض كساب سنة حساباتك. الحلقة دي هرا دين كذا هذا اللي في حساباتك حسابيها ونكسن. إن شاء الله ما أنت حلقة ديني وحن كذا هذا دون يا استعمه وليه حسابيها ونكسن. هدي الله ود لو قرأت حلقة ديني ما أنت حن كذا هذا دون حرفة وليه حسابيها ونكسن أما حرفة اللي قفش حسابيها ونكسن. aqoonta uu leeyahay ama aqoonta looga baahan yahay xisaabiyaha wanaagsan. Waxaan kaloo idinla wadaagi doonaa qaar ka mid a sistamyada lagu shaqeeyo xisaabaadka ama sistamyada shirkadaha waaweyn ama shirkadaha yaryar ku shaqeeyaan xisaabaadka la-aantoodna aanay shaqayn karin. Kusoo dhawaada. Haddii aan xalqadeena maanta inoo bilaabo xirfadaha uu leeyahay xisaabiyaha wanaagsan ama xirfadaha looga baahan yahay xisaabiyaha wanaagsan way badan yihiin mana soo koobi karno. Kambani kasta oo xisaabiyo dooranaya ama xisaabiyo wanaagsan dooranayaana shuruudo gaar ah ama xirfado gaar ah oo kambanigiisa waafaqsan ayuu doonaya inuu ku doorto. Balse laakiin halkan waxaan kusoo koobay falanqayn ama xirfado ay ka kooban yihiin ama ka siman yihiin kambaniyada badankooda ama hawsha xisaabaadka badankeeda looga siman yahay. Xirfadaha waxaa ka mid ah xirfada loo yaqaano falanqaynta. Xisaabiyaha wanaagsan ama qofka xisaabiyaha inuu leeyahay falanqayn rogrogid badan dhinacyo badan ka eegis ku saabsan xisaabaadka ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah inuu leeyahay hal adeeg xisaabeed. Maaha hal adeeg go'aaneed ama hal adeeg shaqeed ama hal adeeg kale. Qofku inuu leeyahay hal adeeg ku saabsan xisaabta ama hal adeeg dhinaca xisaabta oo hadday tahay saxnaanteedii hadday tahay ka shaqaynteedii hadday tahay kalsoonidii lagu qabay xisaabta inuu hal adeeg ka leeyahay. Waxaa ka mid ah xisaabiyaha wanaagsan wuxuu leeyahay xiriir wanaagsan oo uu kula shaqaynayo bulshada inteeda kale ama kambaniga shirkadda ururka ama ganacsiga uu joogo ka shaqaynayo. Xisaabiyaha wanaagsan waxa uu leeyahay xiriir wanaagsan. Xisaabiyuhu waa qofka keliyaata ama waa qaybta keliyaata ee isaan hore u soo sheegay dhammaan shirkadda ama ganacsigu ama ururku la shaqeeyo. Sida laajikeed waxaa lagama maarmaan ah in xisaabiyaha wanaagsan uu leeyahay xiriir wanaagsan. Qof kasta uu fahmi karo, qof kasta uu la shaqayn karo, qof kasta uu la dhaqmi karo oo shirkadda ama kambaniga ama ururka ka mid ah. Waxaa kaloo ka mid ah xirfadaha ama waxyaabaha lagu doorto xisaabiyaha wanaagsan wuxuu leeyahay waqti ilaalin. Hadday tahay shaqada waqtigeeda iyo hadday tahay hawlaha kale ee shirkadda ka soconayaba ama hawlaha kale loo dhiibtay xisaabiyaha wanaagsan. Waxa uu leeyahay waqti ilaalin oo waqtigii loogu talagalay kama dib dhaco inuu kasoo horumaro mooyaane. Taasina waa waxyaabaha lagu doorto ee ugu wanaagsan xisaabiyaha wanaagsan oo ah waqti ilaalinta ama inuu waqtigan yahay qof timekeeper ah. Waxaa kaloo ka mid ah xirfadaha lagu doorto xisaabiyaha wanaagsan inuu leeyahay xirfadii shaqada. Hore saan usoo sheegnay dadka aan aqoonta u lahayn xisaabaadku weliba ay kasii shaqayn karaan hawlaha xisaabaadka sida hanti dhowrka iyo dhaqaalaha waana geli karaan doodaha lagu falanqaynayo xisaabaadka si madax bannaan. Marka qofku haddii aanu xirfad u lahayn ama xisaabiyahan haddii aanu xirfad u lahayn shaqadan ama aanu hore uga soo shaqayn ama training lagu siin ama aanu xirfadba u lahayn nooc kasta oo xirfadeed kama shaqayn karayo xisaabiyuhu shaqadiisa. Waxyaabaha lagu doorto waxaa ka mid ah qofka inuu nidaamyada xisaabaadka yaqaano. Waan idinla wadaagi doonaa nidaamyada xisaabaadka ama systemka la isticmaalo sistamyada ugu badan ee la isticmaalo adduunka. Sistamyada mid ka mid ah haddii aanu garanayn ama nidaam xisaabeedkii haddii aanu garanayn hadday tahay hay'ad iyo hadday tahay urur iyo hadday tahay shirkad hadday tahay ganacsi weyn ama ganacsi yar waxaa lagu shaqeeyaa nidaam xisaabeed. Xisaabna la iskama qoro la iskama geliyo meel. Waxaa lagu shaqeeyaa ama ay ku kala socotaa shirkaddu waa nidaam xisaabeed. Qofkii haddii aanu garanayn nidaam xisaabeedkii ama aanu garanayn dhinaca uu ka maro ama shakiyo kaga jiro inaanu garanayn qofka nidaam xisaabeedkii way adkaanaysaa siduu u soo shaqeeyo waana adkaanaysaa si shirkaddu ay uga hesho qofkan hab xisaabeed faahfaahsan oo dhammaystiran. Marka nidaam xisaabeedku aad buu muhiim ugu yahay xisaabiyaha waxyaabaha lagu doorto. Waxaa kaloo ka mid ah inuu qofkan leeyahay nidaam warbixineed. Qofka hadduu garanayo systemka siduu u isticmaalayo xisaabtii sida loo gelinayo ama hab xisaabeedka sida looga shaqaynayo uu garanayo aanu garanayn nidaamkii warbixineed ama nidaamkii xisaabtan looga warbixin lahaa way adkaanaysaa sida isagana uu shirkadda usii joogo ama uu sii ahaado hantida shirkadda mustaqbalka fog. Waayo dee qofkii nidaamkii xisaabtaba ma garanayo waa kan xisaabta dadku tiraahdo halkan maxay sidan u noqotay laba halkan maxay sidan oo saddexna sidan maxay u noqotay
oo aanu kaaga warbixinin ama aanu ku siinin dhacdo sax oo ay ku timi, qofkii ma soconayso. Shirkadda inta lagu guda jiro waxaa la isticmaalaa ama report ha ahaato, warbixin xisaabta ku saabsan, ama email la isdhaafsado oo dhinaca communication-ka ha ahaatee. Qofku haddaanu hab kasta oo loo warbixiyo ama hab warbixineed garaneyn, way adkaanaysaa siduu xisaabaad uga sii shaqeeyo. Waxaa kaloo ka mid ah qofku inuu barto goobtiisa shaqada. Qofku haddaanu garanayn goobtiisa shaqada, si fiicanna u garaneyn, ma fiicna dee, oo waxay ku adkaanaysaa waxaa iskaga qaldamaya systemkiisii xisaabta ama siduu morale u shaqaynayo qofkani, iyo jawgii ku xeernaa ama deegaankii ku xornaayo shaqada. Marka inuu barto deegaanka ku xeeran shaqada, organization-kiisa, department-yadiisa ama waaxaha u kala qaybsamo, madaxdiisa, shaqaalihiisa, isagu halkuu ka taagan yahay ama boosku ka hayo. Haddaanu qofkani garanayn, waxay noqonaysaa dhinac qofku uu shaqeeyo si yara negative oo qofkii aanu ahayn qof satisfied shaqadii ama ku qanacsan shaqadii. Waxaa ka mid ah waxyaabaha kale ee lagu barto inuu qofku yahay qof bulshada ama inta lagu guda jiro shaqadiisa, qof aan ahayn qof dhacdhac badan, qof aan ahayn qof bilaa dulqaad oo dulqaadku ku yar yahay, oo haddii shaqadiisa wax ka qaldamaan loogu celiyo ama loo sheego, qof aan ka xanaaqin ama aan si kale u arag, dhinaca u qaadan khaladka ah ama dhinaca taban aan u qaadan. Mar walba shaqada marka la wada joogo goob shaqo, khalad baa dhici kara, wax walba iman kara. Waa inuu qofku yahay qof dulqaad badan oo u dulqaadanaya waxyaabaha shaqada ku socda. Qofku haddaanu dulqaad ahayn ma sii ahaan karayo xisaabiye. Xisaabiyaha wanaagsan waxaa looga baahan yahay inuu dulqaad badan yeesho. Halka haddaynu ku dhaafno xirfadaha ama astaamaha lagu dooranayo xisaabiyaha wanaagsan, aan u gudubno aqoonta uu uga baahan yahay ururka ama kambaniga ama shirkaddan soo qaadanaysa xisaabiyaha, aqoonta ay uga baahan tahay. Asliyan markaynu isla eegayno xisaabiyaha wanaagsan, saan hore idinku sheegay, xisaabaadka waxaa ka shaqayn kara qof aan xisaabaad soo baran ama aan u sidin shahaado xisaabaad. Waayo waxay ku xidhan tahay systems baa la isticmaalaa ama programyo. Programyada qofkii hore usoo arkay ama kusoo shaqeeyay ama training ugu soo siiyay, uma baahna inuu jaamacad usoo galo xisaabaad, ama ha yaraato ama ha badnaato uu soo qaato shahaado cadaynaysa. Laakiin badanaa markay shirkaduhu yihiin shirkado caalamiya ama shirkado magac ku dhex leh bulshada, way adagtahay say ku qaataan qof aan aqoon xisaabaad lahayn. Way jiraan khibradda iyo aqoontu way kala duwan tahay. Inaad khibrad wixii u lahaatood ka soo shaqeyso waa mid meesha taalla. Qof baa jiro kugu qanci karo, kugu qaadanaya. Laakiin siday u badan yihiin kambaniyada ganacsi ee hadda jiraanba, ururada ama hay'adaha jira waddanka, hay'ad kastaa waxay leedahay magacay ku dhex leedahay bulshada. Haddii ay qaadato qof aan aqoon u lahayn xisaabaadka ama lagu xamanayo inaanu aqoon xisaabaadka u lahayn, waa shay hay'addii dhaawac gaarsiinaya ama shirkaddii dhaawac gaarsiinaya ama kambanigii dhaawac gaarsiinaya. Marka inaad warqad cad sidato oo warqad kuu cadaynaysa inaad xisaabaad tahay, kama turjumaysa inaad xisaabaadkii garanayso. Way jirtaa mar aad shahaadooyin ku sidato, ama degree ha ahaato ama master ha ahaato ama shahaadooyinka kale ka sarsareeyaba ha ahaatee, oo aanad garanayn isticmaalkii iyo sidii loo isticmaalayay systemkii. Balse way jirtaa adigoon intaaba haysan oo aad systemkii si fiican u garanayso. Marka waa muhiim mar walba inaad shahaado sidato. Waa wax standard ah oo iminka caalamku kaama soconayo khibrad baan u leeyahay waxan, ama way adag tahay sida lagugu qaato adigoon aqoon u lahayn shaqadii, inaad khibrad kaliya lagugu qaato. Shahaadooyinka ama waxyaabaha qofka looga baahan yahay aqooniyan way badan yihiin. Hadday tahay qofka ugu yaraan inuu diploma haysto, marba booska shirkadaasi soo xayeysiiso ama hay'adaasi soo xayeysiiyo ama ururkaasi soo xayeysiiyo ayay ku xidhan tahay. Hadday diploma soo xayeysiiyaan, waa inaad diploma haysataa. Haddii degree soo xayeysiiyaan, waa inaad degree haysataa. Ka sareysa master iyo wixii ka sareeya haddii soo xayeysiiyaan, waa inaad haysataa. Marka inaad aqoonteedii lahaato, inaad khibrad leedahay oo systemkii khibrad u leedahay, maaha inaad bilaa aqoon tahay. Inaad aqoontii leedahayna maaha inaad bilaa khibrad tahay. Labadaba waa muhiim. Inaad systemkii barato oo khibrad u yeelato, iyo inaad wixii cadaynayay waxaan inaad khibrad u leedahay aad soo qaadato. Waxaa jira shahaadooyin caalamiya oo dhinaca marka laga eego accounting, waliba dhinaca hanti dhawrka laga eego la qaato caalamka. Shahaadada koowaad ama shahaadooyinka la qaato waxaa ka mid ah CPA, waxa la dhaho Certified Public Accountant, oo badanaa dadka auditorska ama xisaabaadka dadka hanti dhawrka ahi qaataan. Waxaa ka mid ah shahaado la dhaho CFA oo loo soo gaabsado Certified Financial Analyst, oo iyadana la qaato.
waxaa ka mid ah shahaado la dhaho CMA oo ay dadka badanaa managerska qaataan oo la dhaho Certified Management Accountant oo qofka shirkadda hogaaminaya ama qofka managerka ka ahi haddii uu u baahan yahay inuu system xisaabeed barto uu haystaa xisaabiye waanu haystaa xisaabiye wanaagsan oo shirkadda xisaabeedkeeda gacanta uga haya kana warbixiyo warbixinta uga baahda siiya laakiin laazim hadduu doonayo qofkaasi ama managerkaasi inaanu qofka xisaabaadka warbixin dheeraada uga baahan ama warbixin dheeraada faahfaahin dheeraada koona soo bixi way jiraan managerada qaar barta Certified Management Accountant waxaa kaloo jira shahaado la dhaho CIA oo badanaa internal auditors ku qaataan la dhaho Certified Internal Auditor waxaa jira shahaado kale la dhaho CAIA oo loo soo gaabsado Chartered Alternative Investment Accounting oo badanaa dadka investment iyo waxaas qaataan ACA wax la dhahaa jirto oo way kala duwan yihiin shahaadooyinka laakiin way badan yihiin ACA wax la dhahaa jirto oo Association Chartered Accountant la dhaho ACCA wax la dhahaa jirto way badan yihiin shahaadooyinka accounting ama standard ahaan accounting shahaadooyinka loo qaataa mana soo koobi karayno waxaan intaa ku joojinayaa shahaadooyinka ama aqoonta qofka looga baahan yahay xisaabiyaha wanaagsan haddii aan idinla wadaago dhinaca kale in yaroo ku saabsan systemyada ama standard ahaan systemyada badan ay ku shaqeeyaan kambaniyadu waxaa ka mid ah waxay ku shaqeeyaan QuickBook shirkadaha yaryar ee ganacsiyada markaan ka sheekeynayno waxay ku shaqeeyaan QuickBook waxay ku shaqeeyaan Page3 waxay ku shaqeeyaan Tally wax la dhaho marka loo yimaado shirkadaha waaweyn ama ganacsiyada waaweyn waxay ku shaqeeyaan ERP wax la dhaho Enterprise Resource Planning la dhaho shirkadu sida u dhantay departmentiyadeeda ana accounting kaliya ka shaqeynayna management-iga ka shaqeynaya project-iga ka shaqeynaya planning-iga ka shaqeynaya nooc walba systemka Oracle system la dhaha la isticmaala waxa la isticmaalay kale dynamic wax la dhaho way badan yihiin systemyadu ma soo koobi karayo xalqada maanta halkaas inoogu joojinaya intan xalqada ku xigta ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu